waxaana wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka falaqaynta arrimaha caalamka waxyaabaha xiisaha badan ee xilligan barnaamijka aan idinkugu soo tabi doonana waxaa qayb ka noqon doonaa madaxweynaha Mareykanka oo ku wajahan dalka Shiinaha Iran oo markaasi ogaatay xog qarsoodi oo Mareykanku la damacsan yahay iyadoo ay socdaan wada hadallada ee Pakistan dhexdhexaadinayso Islamabad ee ka socda u dhaxeeya Mareykanka iyo markaasi Iran ayaan eegi doonaa qodobada kale ee barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqon doona Sacuudiga iyo Imaaraadka oo weerar ku qaaday gudaha dalka Iran ayaa barnaamij ku daawan doontaan qodobada ay waliba qodobo kale ayaad kaga bogan doontaan balse marka hore nagu soo biira oo bageena markaasi ku soo biira si aad u heshaan xogii ugu dambeeyay ee arrimaha caalamka haddii aynu ku bilowno madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay inuu markaasi uu ku wajahan yahay gudaha dalka Shiinaha si uu markaasi uu halkaasi ugala hadlo xiisada dabcan ka taagan oo markaasi bariga dhexe madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo arrimaha markaasi ka hadlayay muddooyinkii ugu dambeeyay arrimaha xilligan ka taagan bariga dhexe ayaa wuxuu ku wajahan yahay xilligan gudaha dalka Shiinaha hadalkan ayuu sheegay markii wargeyska New York Times uu qoray in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay inuu jimcihii si weyn loo wiiqay laakiin warbixinada qarsoodida ee Mareykanku ay muujiyaan xaaladdu inay sida markaasi Trump uu sheegay aan ahayn hogaamiyaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa soo dhaweeyay dhageysiga Mareykanka ee markaasi magaalada Jinping Donald Trump waxa la xasuusan doonaa booqashadii ugu dambeysay oo dalkaasi ku tago tan iyo 2017 waxaana si weyn loogu soo dhaweeyay waa markaasi gudaha magaaladaasi taasoo sharaf weyn markaasi u hayn madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump isagoo markaasi helin soo dhaweyn heer sare safarka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku tagayo waa markaasi Shiinaha ayaa ku soo aadaya iyadoo toddobaadii la soo dhaafay ay halkaasi joogeen wafdi ka socda Iran Shiinaha ayaa saaxiib dhow la ah gudaha dalka waa markaasi Iran madaxweynaha dalka Mareykanka ayaana doonaya inuu markaasi arrimo xasaasi oo kala hadlo madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ay ka wada hadlaan xiisada dabcan markaasi ka taagan bariga dhexe dhinaca kale haddii aynu eegno xulafada Sacuudiga iyo Imaaraadka oo isgarabsanaya ayaa weerar waxay ku qaadeen gudaha dalka Iran dowladda Sacuudi Carabiya ayaa duqeymo xiriir ah oo aan horey loo shaacin ku qaaday gudaha dalka Iran kuwaasi oo ahaa argoosi dhanka weerarada Iran ay kurbar tilmaameysatay gudaha boqortooyada Sacuudi Carabiya intii uu socday dagaalka bariga dhexe sidaas waxaa xaqiijiyay laba sargaal oo reer galbeed ah iyo laba sargaal oo Iiraaniyiin ah oo ila xogagaala markaasi arrintan ka xaqiijiyay weeraradan aan fagaaraha la qarin ayaa noqonaya markii ugu horeysay ee la ogaado Sacuudigu inuu si toos ah howlgallo militari uga fidinayo waa markaasi gudaha dalkaasi Iran talaabadan ayaana ku soo aadaysa iyadoo xiisada bariga dhexe markaasi u muuqato midba marka ka dambaysa si xoogeysanaysa weeraradan aan fagaaraha la qarin ayaa noqonaya markii ugu horeysay ee la ogaado in Sacuudigu si toos ah howlgal militari uga fuliyo waa markaasi ciidamada Iran talaabadan ayaa muujinaysa in dhiiranaanta sii kordhaysa ee boqortooyada Sacuudi Carabiya ay markaasi isaga difaacayso cadowga ugu weyn ee gobolka laba sargaal oo reer galbeed ah ayaa qiimeyn ay ku sameeyeen waxay ku sheegeen in duqeymo ay fuliyeen ciidamada badda waa markaasi dalkaasi Iran ay yihiin kuwii ugu xooga badnaa ee markaasi laga geysto gudaha dalkaasi tan iyo markii uu bilowday dagaalka bariga dhexe wakaalada wararka ee Reuters ayaa xog ay shaacisay waxay ku suurtagelisay inay xaqiijisay goobaha rasmiga ee gudaha dalka Iran ee la bartilmaameysatay xiisada waa markaasi weerarada ay Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadku ay ka qaadeen gudaha dalka Iran Sacuudi Carabiya oo xiriir militari oo qoto dheer la leh Mareykanka ayaa dhaqan ahaan markaasi isku halaysan difaaca militari ee Washington balse dagaalka oo socday 10 toddobaad ayaa muujinayay boqortooyada Sacuudiga ay nugushahay weeraro markaasi soo dhaafay gaashaanka militari ee Mareykanka arrintan ayaana waxaa ku soo aadaysa iyadoo wada hadallada u dhaxeeyo waa markaasi Iran iyo Mareykanku ay ka socdaan Islamabad kuwaasi ay dhexdhexaadinayso waa markaasi dowladda dalka Pakistan oo lagu doonayo in lagu soo afjaro xiisada ka taagan bariga dhexe ugu dambeyntiina Iran ayaa ogaatay xog qarsoodi ah oo Mareykanku la damacsan yahay
xildhibaan markaasi oo markaasi Iiraan ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Iiraan isagoo ka hadlayay sii socoshaha Mareykanka ee markaasi qalabka iyo ciidamada uga soo markaasi daldaloolaya bariga dhexe ayuu sheegay in Mareykanka iyo Israa'iil ay isku diyaarinayaan howlgal ballaaran oo dhanka Iiraan isagoo sii tixraacaya dabagabka ama iraade waa dadaalada Mareykanka ee Iiraan inay joojiso kubcinta Yurubiyaanka barnaamijka nukliyeerka oo markaasi dib uga baxdo kaydka waa markaasi barnaamijkan lagu kaydiyo ayuu waxa uu sheegay in Iiraan ay la damacsan tahay inay weerar ka geysato gudaha dalka Iiraan guud ahaan saaxiibayaal waan nageynta barnaamijkii labaad oo maanta kaga hadlaynay arrimaha falaqaynta caalamka tan inta markale hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaa nabadgelyo.